waa inaan isbartaa. waxa laga yaabaa markaa inaad ka cabsoonayso xataa inaad isbarato, sababtoo ah waxaad og tahay xaqiiqada naftaada iyo sida aad tahay iyo meelaha aad ku liidato, sidoo kale meelaha aad ku fiican tahay. bini aadan baan nahay dhammaanteen. assalaamu calaykum, kusoo dhowow mar labaad Guuleed Podcast. qaybtii hore waxaynu kaga hadalay si guud mowduuc aada u weyn oo horumarinta shakhsi ahaaneed. waxaan nidhi horumarinta shakhsi ahaaneed waa mowduuc aada u ballaadhan oo leh cutubyo yaryar oo midba midka kale ka muhiimsan yahay, oo qofkana muhiim ay u tahay in uu barto ama uu naftiisa ku horumariyo. waxaan gudagali doonaa mowduuc muhiima. mowduucaasi wuxuu noqon doonaa naftaada barato. marka mowduuceenu maanta wuxuu ku saabsanaan doonaa in uu qofku naftiisa milicsado oo uu naftiisa barto. ismilicsigu ama barashada naftaadu waxa ay ku siin doontaa iyo in aad naftaada barato waxay kuu ogolaanaysaa inaad naftaada si fiican oo daacada u fiiriso, ood garato waxyaabo fara badan. maxaan samayn karaa? maxaan dareemayaa? maxaan rabaa anigu inaan gaadho oo noloshan ka qabto? anigu yaan ahay? su-aalo fara badan. marka in uu qofku naftiisa barto, waxaan odhan karaa waxay aasaas u tahay mowduuceennan aadka u weyn ee horumarinta shakhsi ahaaneed. waa sababta marka aan uga dhigay cutubka koowaad ee mowduucan aadka u ballaadhan. markuu qofku horta nafsiyan isagu waxyaabo badan uu ogaado oo naftiisa uu si fiican u barto, unbay suurtagal tahay markaa in uu sidoo kale horumariyo naftiisa. kale waxaa fiican qaybo badan inaad ogaatid. maxaan ka damacsanahay hawsha aan qabanayo? maxaan uga dan leeyahay? maxaa rabaa anigu? iyo su-aalo fara badan oo individual ah oo qof kasta khaas u ah, oo loo baahan yahay qof kasta inuu si shakhsiyana naftiisa uga jawaabo, maadaama aanu isku nolol ahayn, isku da aanu ahayn. sidoo kalena noloshana meelo kala duwan iyo darajooyin kala duwanna aan ka taagannahay markay noqoto qaybo badan oo mindset ah ama material xataa markay timaado. marka su-aashani waa mid qof kasta u khaasa. su-aalahani waa mid qofka u khaasa. marka qofku isaga isbaran kara. markuu ka aanan isbaran oonan naftiisa baran, sidoo kale ma noqdo qof isku kalsoon oo kalsoonidiisu ay noqoto mid xooggan. waayo waxaan odhan karaa qofku haddii uuna garanay wuxuu ku fiican yahay iyo meeluhu ku fiican yahay, oo ay dhacdaba in uu qofkaasi waxaan odhan karaa isceebeeyo meelaha qaar markay timaado, kalsoonidiina halkaasay qofkaas kaga burburaysaa. taasina waxay ku timaadaa qofkaasi isma weydiin markii horeba ma ku fiicanahay meelahan iyo waxa aan dabcan qabanayo. dhinacay doonto way noqon kartaa, laakiin waa si guud uun. inta badan maxaa naga hor istaaga in aan ismilicsano ama aan samayno self reflection ama aan samayno inaan nafteenna baranno? badanaa maxaa naga hor istaaga? way fiicnaan lahayd qasab inuu qof walba waqti qaato oo naftiisa barto, laakiin bal waxaan eegaynaa maxaa naga hortaagan. adiga aan ku weydiiyey dhegeysanaya, maxaa kaa hortaagan inaad naftaada barato? khubradu marka waxay sheegaan dhowr qodob ayaa qofka ka hor istaagi karaa inuu naftiisa barto. badanaa kow waxay noqonaysaa waqti la-aanta. waqti badan haddii aad mashquulsan tahay oo shaqo iyo hawl adduun ku mashquulsan tahay, waxaa adkaanaysa inaad isbarato, maadaama spacekii maskaxdaadu ayna helayn ay waqti ku qaadan lahayd oo ay ku ogaan lahayd meelo badan oo ay ku fiican tahay. sidoo kale waxaan odhan karaa maskaxdu
qofba qofka kale ay maskaxdiisu ka mashquulsan tahay oo ay ka mashquulka badan tahay ayay ka adag tahay inuu qofku isbarto. taa macnaheegu maskaxdaada hadday bilaano badan ku jiraan ama howlo badan aan nidhaaho oo loo baahanya inaad qabato, way adkaanaysaa marka in aad sidoo kale maskaxdii ama naftii ay ogaato meelo badan ay ku fiicnayd. tusaaloo kale qofku markuu shaqo badan yahay, waxaa laga yaabaa shaqada uu hayo maahay shaqooyin kale oo ka wanaagsan in uu kaga fiicnaan lahaa haddii uu spaceku maskaxdu helayso firaaqadii ay ku fikiri lahayd, ama waxaa laga yaabi lahaa inuu qofkaasi creative noqon lahaa. koley halkaana waan isla haynaa, waa qodobka labaad baan odhan karaa ee keeni kara ama ka hor istaagi kara qofka in uu ismilicsado. qodobka saddexaad waxay noqonaysaa in aad cabsi ka qabto naftaada iyo runta iyo xaqiiqada inaad iska indhatirto. inta badan waxaa naga hor istaagi karaa inaan nafteenna baranno waxa weeyaan xaqiiqada iyaad og tahay, oo waxaa tahay qof adiga naftaada ka garanaya ama ka yaqaanan. qof walba naftiisa isagaa si fiican u yaqaana, oo dee waa adigii naftaadii weyan. so marka ma jiro qof naftaada si fiican u yaqaano oo sheegi kara waxay ku fiican tahay, waxa ay ku xun tahay iyo sida ay tahay, qaabkay tahay, wax walba. marka waxaan odhan karaa inta badan waxa kaa hor istaagi kara inaad ismilicsi samayso ama self reflection, cabsida aad ka qabto runta iyo xaqiiqada naftaada. marka waxaa laga yaabaa inaad iska meermeeraysato ama aad ka meermeeraysato inaabad dib u eegto nolosha naftaada oo tiraaho inaad naftaada barato runta iyo xaqiiqada aad adigu og tahay iyo wixii aad awooddo iyo maxaanku idhahay wanaagga iyo xumaanta. dabcan sidoo kale meelo badan in aad adigu ogaato ood naftaada barato waa wax wanaagsan oo mar walba loo baahaya. sidoo kale waxaa ka hor istaagi kara qofka inuu naftiisa barto bulshadeenna iyo habdhaqankeenu inta badan waad aragteen. waxaa qofka lagu yiraahaa ha noqonin qof wax badan isweyweydiiya. caalamkana arrimahaasi waxay galaanba philosophy iyo waxay galaan tinker qofku inuu noqdo. haddii uu yahay qof wax badan isweydiiya, waxaa dabcan Nobel Prize baa lagu guulaystaa. taa macnaheegu waa qof wax curin karu noqda qofka hadduu wax isweydiiyo, sidan isay ku dhaceen, see wax lagu bedeli karaa, maxay sidan isaa u yihiin. isweydiintu waxay hoos iman kartaa caalamka kale markaad eegto aqoon iyo maskax la miiray bay noqotaa. laakiin inagu isweydiinta waa laga dhuuntaayo qofku inuu wax isweydiiyo waxay noqotaa markaa bulshadeennu in ceeb loo arko oo la yiraahaba qofka wax badan ha isweydiinin. marka qofku inuu naftiisa barto, xataa inagu maanta halka aan taaganahay eed arkayso, waxaan odhan karaa waa in aan isweydiin waxyaabo badan oo aan soconno uun. marka haddii aan nafteenna baranno intaanu dhaqaaqin ka hor oonan ordin degdega sida camalka shaydaan oonu xiimin, waxaa fiican qof walba inuu meel fadhiisto oo waqti qaato, kadibna naftiisa uu barto. markaasunbay fududaanaysaa xataa inuu guulaysto, bulshadiisana wax u tari karo, naftiisana sidoo kale wax u qaban karo. jirta haddii lacala uu qofku naftiisa barto maxaa dhici doona? maanta adiga ay dhegaysanaya iyo aniguba haddii aan naftayda barto ama aad naftaada adiguna sidoo kale aan nafteenna baranno, maxaa dhici doona? kow waxaa dhacaysa qofku markuu naftiisa barto in uu noloshiisa meelo badan og yahay in loo baahan inuu wax ka qabto. tusaaloo kale waa sida shirkad oo kale, naftaadu kaba soo qaad, waxaa loo baahanya inaa meelo badan wax laga hagaajiyo, halkaa in laga saxo, halkaa in la kobciyo, hadday saxan tahay xataa lasii horumariyo, waa saasoo kale. marka in uu iska dhiso naftiisa qaybo badan iyo qofka ogaanayaa wuu fahmayaa, waayo wuxuu noqonayaa qof isbartay. marka waxay ka saacidaysaa in uu qofkii noqdo qof baraarugsan mar walba, oo hadday kalsoonidoo kale kalsoonidu qofkaasi ku yar tahay, intuuna wax qardadaf jebin uu ogaado inay kalsoonidiisu tahay mid low ah, waxaa u fududaanaysa qofkaasi intuuna ku ceeboobin ama
bulsho la hor iman ama ku shaqo tagin kalsooni daradaas intuuna ku shaqo tagin baa waxaa macquula in uu marka hore kalsoonida iska dhiso oo noloshii ku praxis gareeyo bulshada u dhow waxyaabo fara badan. So marka waxay ka saacidaysaa ismilicsigu self reflectionku wuxuu ka saacidayaa wuxuu inaga saacidayaa in aan nafteena fahano oo aan talaabo qaadno. Marka sidoo kale qofku wuxuu fahmayaa qofka uu waqti xaadirka yahay iyo qofka uu noqon doono. taas laftigeedu marka aad ismilicsato ood isbarato waxaad ogaan kartaa si fudud aad u ogaan kartaa qofka aad noqon doonto berri ka maalin. waayo mustaqbal ballaaran ilaahay cimriga ha noo wada dheereeyo waqtiguna uu iska dheeryahay. maanta marka haddii aad isbarato waxaad ogaan doontaa berri qofka aad noqon doonto. laakiin haddii aadan maanta isbaran oodan waxyaabo badan isweydiin ma garan karaysid xataa mustaqbalka qofka aad noqon doonto. taasina waa halis. marka waa inaad ilaahay baa og wax walba caalimulqayba oo isagaa mar walba mustaqbalka noo qorshay. laakiin isbarashadu waxay kuu ogolaanaysaa xataa heerka aad mustaqbalkaaga noqon doonto marka aad sii qiyaasto. haddaad tahay tusaale maanta nin alla ka cabsi leh oo wanaagsan oo cibaadaysta way fududahay inaad mustaqbalkaaga aragto. waxaad noqonaysaa nin ka sii wanaagsan. soo maanta haddii aad naftaada intaad baran weydo intaad meel fadhiisato aad odhan weydo xaggan iyo xaggan waxaa loo baahan inaad iska qabto waxaan sidan salaad la-aantu hadday igu badanta waa inaad salaada tukad ma fahmaysa. so marka waa tusaalaha ugu weyn ee uguna faa'iidada badan aan ku siiyey oo way badan yihiin tusaaluhu saan horeyba u sheegay. marka in uu qofku isbarto shaksi to shaksi waa wax u gaara. marka qaybta ku xigta insha allah waxaan rajayn doonaa inaan mawduucan sii wadi doono. waxaan ogahay mawduucan inuu yahay mawduuc isagoo laftigiisu cutub aad u ballaaran oo aanan noo ogolaaneyn in fideogu saas oo dhan u dheeraado. waxaan isku dayi doonaa marka inaan baartitu ka soo sameyno. insha allah qaybta commentiga waxaad iigu reebtaa wixii fikirkaaga eed jeceshay inaad ila wadaagto iyo meelaha ugu wanaagsan eed isleedahay loo baahanya in laga hagaajiyo qaybta bodcastiga. insha allah ammaano allah khayr iyo caafimaad buu kuu dhaafay. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.